تأملات قرآنية. قرآن أحيا في قلبي نورا من بين الظلمات، أعطاني ثقة في ربي، أملا إيمانا وحياة، في كوني لا أيأس أبدا والحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، suuradan aynu qaadan doonno insha allahu tabaaraka watacaala xalqadan waxaa loo yaqaanaa suurat alqaarica. marka alqaarica waa magacyada qiyaamaha ayay ka mid tahay. alqaarica waa tii qalbiyada garaacaysay. alqaarica waa tii waxa weeyaan dhibaatadeeda iyo waxa weeyaan waxyaalaha waaweyn ee dhexdhacaya qalbiga ay garaacayeen oo ay ruxayeen. suuradani waa suura makiya oo maka kusoo degtay. maqsuudka iyo ujeedada suuradani ay ka warramaysaana waa xasuusta dadka la xasuusinaya maalinka aakhiro iyo qiyaamaha. alqaaricatu tii qalbiyada garaacaysay. ma alqaaricatu maxay tahay ta qalbiyada garaacaysa? wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey? ma alqaaricatu maxay tahay ta qalbiyada garaacaysa? yowma yakuunu nnaasu waa maalinka dadku ay noqon doonaan kalfaraashi almabthuuthi sidii ayax la firdhiyey. alfaraash sidii ayax almabthuuthi la firdhiyey. watakuunu aljibaalu buuruhuna ay noqon doonaan kalcihni almanfuush, kalcihni sidii suuf almanfuushi la kala kaxeeyey oo waxa weeye jilcay oo aad iyo aad u jilicsan. buurihii adadkaa ay noqon doonaan suufkaa yare la feedhay ee waxa weeyaan la kala kaxeeyey. faammaa man haqulat mawaasiinuhu qofka miisaanadiisu maalinka aakhiro ay cuslaadaan fahuwa isagu fii ciishatin wuxuu ku sugan yahay nolol raadiyatin uu raali ka yahay waxa weeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu raali ka yahay. waammaa man khafat mawaasiinuhu ka miisaanadiisu ay fududaadaan oo waxa weeyaan camalkiisa saalixu uu yaraado fa ummuhu hooyadii haawiyatun waa naar. yacni hooyadii waxaa looga jeedaa hoyga uu gelayo ee hooyaha oo waxa weye hooyadii oo kale noqonaya haawiyatun waa naarta haawiya la yidhaahdo weeyaan ee haawanaysa ee waxa weeyaan yacni gunteedu ama waxa weeyaan aan la gaari karin aadka waxa weeyaan godka aadka u dheerka ah. taasa waxa weeyaan hoyga uu gelaya ee waxa weeyaan uu ku jiraya uu yahay. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maahiya maxay tahay? marka maahiya ayay ahayd. haadaa dambana waa lisakti waa tii lagu istaagaya. maahiya yacni maahiya maxay tahay naartaas? naarun waa naar xaamiyatun kulul oo aad iyo aad waxa weeye runtii loo shiday. suuraddan markaa waxay ka warramaysaa aakhiro iyo dadku sida ay noqon doonaan. yowma yakuunu nnaasu kalfaraashi almabthuuth dadku waxay noqon doonaan sidii ayax la firdhiyey oo ayax waxa weeyaan yacni fara badan oo yaacsan ayay noqon doonaan. suurad kale waa kii ilaahay lahaa subxaanahu wa tacaala kaannahum jaraadun muntashir. waa jaraadii ayax muntashir waxa weeyaan yacni kala tagsan oo faafsan. marka waxaa loogu tusaaleeyey ayaxa waayo ayaxu farabadnida horta uu badan yahay iyo jahawareerka uu jahawareersan yahay oo marka uu fara badan yahay waxa weeyaan yacni jahawareer baa ku dhaca oo meeluu ku socdo iyo meeluu ka socdo midnaba ma jirto. balanbaalistana waa lagu fasiray faraashka balanbaalista yarar ee dulduusho ee ku soo ururta waxa weeyaan dabka ee ku dhacda dabka waxa weeyaan taasna waa lagu fasiray in looga jeedo alfaraash almabthuuth. labaduba waa saxo waxaa looga jeedaa farabadnida iyo jahawareerka maalinka qiyaamo jira. waa maalin daran. watakuunu aljibaalu kalcihni almanfuush buuruhuna waxay noqon doonaan sidii suuf waxa weeyaan la feedhay oo buurihii adkaa suuf yaro jilicsan oo waxa weeyaan yani dabayshu ay qaadayso ay noqon doonaan.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا buuraha ayay ku weydiin doonaan waxaad tiraahdaa rabbigay ayaa baabin doona waxa laga dhigi doonaa buuraha oo dhan habaa manthura waxay noo soo socotaa waida aljibaalu suyirat buuraha marka la socodsiiyo وترى الجبال تحسبها جامدة إني جامد تهيبة موديسة وهي تمر مر السحاب وأنا أرديسة مركا يعني waxay ku tusinaysaa hawlka iyo darnaashaha maalinkaas uu daran yahay markaas alla sheegay dadku inay u qaybsami doonaan dad waxa weeye miisaankooda uu cuslaado qofkaasi inay ciishatu raadiya nolol fa huwa fi ciishati raadiya nolol wanaagsan oo raali ka yahay ayuu ku sugan yahay wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya qofka miisaanadiisu ay fududaadaanna oo amalkiisa saalix uu yaraado isaga waxa weeyaan hooyadii waa naar hooyadii waxa naar lagu bixi waayo hooyadu ilmaha waa taqabata ee haysa ee waxa weeye ilaalisa ee dhowrta ee waxa weeyaan marka cadaabkuna isna waa wax mulaazim oo sida hooyadu ilmaha ay u hayso ayuu kana cadaabkuna u hayn doona qofka in cadaabaha kana gharama laga saari maayo wama hum anha biqaa'ibin la yakhrujun anha yani meel ay ka baxayaan ma aayadan billahi subhanahu wa ta'ala naarun haamiya wa nar kulul marka haawiya wa meel haadana oo nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhagaxa naarta lagu tuuraa 70,000 sano inuu sii soconayo oo ku sii wax weeyaan qaarigeeda ama gunteedana aanu gaaraynin ciyaadan billahi subhanahu wa ta'ala marka waa wax ilaahay laga magan galo weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala amaladeena inoo wanaajiyo amal saalix oo wanaagsan oo qumman ilaahay subhanahu wa ta'ala amaladeena ka dhigo dadkii miisaanadooda oo cuslaan lahaa aakhirana inaga iyo waalidiinteena iyo jamiica muslimiinba ilaahay ka dhigo wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in